السلام عليكم كسو دواada casharkeeni maanta ee ku hadala English maanta waxaynu baranaynaa sida waqtiga loogu sheego English. If someone asks you what time is it, hadduu qofku weydiiyo, if someone haddii qof asks you weydiiyo, asks waa weydiin, you waa adiga, what time is it, waa imisadii ama waqtigu waa imisa. Would you know how to answer that? Would you know how to answer that? miyaad ogaan lahayd sidii aad uga jawaabi lahayd. By the end of today's lesson, you will be able to tell the time in English with confidence. Casharkan kadib maanta, you'll be able to tell time in English with confidence. waxaad awoodi doontaa inaad ku sheegto waqtiga Ingiriisi with confidence, si kalsooni leh. Asking time. What time is it? What time is it? haddii lagu weydiiyo waxa weeye waa imisadii ama waqtigu waa maxay. What times waqtigu waa maxay. What times waa imisadii. Say it with me, okay? Let's repeat so that you're comfortable with it. What time is it? What time is it? Waa imisadii. Saacadda clock bale, clock. Okay, saacadda clock bale. Marka halkan saacadaynu ku haynaa, saacadahani waxayna tusayaan waqtiyada kala duwan. Okay, tan baynu eegaynaa, tagu horreysaynu eegaynaa. tagu horreysa imisayna tusaysaa, 3 bayna tusaysaa. So markaad odhanaysaa haddii lagu yahay what time is it, waxaad odhanaysaa it is 3 o'clock. It's 3 o'clock. tan baynu eegaynaa. Next one, saacaddu maxay sheegaysaa? 6 bay sheegaysaa. haddii lagu yahay what time is it, it's 6 o'clock. marka o'clock waxaan isticmaalaa o'clock waxaanu isticmaalaa marka aanay saacadda waxba raacsanayn, sida 6 oo kale ama 7 oo kale ama 8 oo kale ama 9 oo kale ama 10 oo kale. laakiin hadday miri raacsayn ma garanaysaa clock ma isticmaalayno. tan oo kale waxaan odhanaynaa it's 9 o'clock. 9 ayay sheegaysaa, it's 9 o'clock. tani waxay sheegaysaa 12 it's 12 o'clock. It's 12 waa 12. It's 12 o'clock. marka waxaad odhanaysaa it's 12 o'clock. What time is it? It's 12 o'clock. What time is it? It's 9 o'clock. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. Let's move to the next part. Quick practice. qaybtan haddaba adiga ayaa ka jawaabaya, adigaan ku weydiinaya, hadhowna jawaabaha ayaan ku siinayaa. What time is it? For the first one. For the second one, what time is it? What time is it? What time is it? Okay. haddaba ta koowaad aynu eegno. What time is it? waa imsadii? It's 3 o'clock. tani 3 galabnimo, 3 bay sheegaysaa tani. It's 3 o'clock. tani waa imsadii? It's 6 o'clock. tani imsadii bay sheegaysaa? What time is it? It's 9 o'clock. What time is it? It's 12 o'clock. marka waa kuwaynu halkan kusoo aragnay oo imaka aynu inagu ka jawaabayno saynu aqoonteena u tijaabino. Half past waxa weeyaan half past. It's half past. haddii lagu yiraahdo half waa 30. waa 30 mirir oo kale. half baad aragto saacad barkeed baa looga jeedaa. Past-na wax tagay weeyaan. marka had iyo jeer marka la half past waxa laga hadlayaa waa saacaddii intaas lagu oranaya. sababta waxa lagu oranaya waa 6 barkii ama waa 7 barkii ama waa 8 barkii. The minute hand point is to 6. That means 30 minutes
the past 30 minutes past marka aynu hadaba tan eegno tan balaag halkan waa 6 laakiin tii saacada sheegaysa way dhaafsantay 6 marka what is it it's 6 it's half past 6 it's half past 6 taasoo ah 6 barkii it's half past way dhaaftay weeyaan way dhaaftay past 6 6 bay 30 dhaaftay marka hadii aanu sidayna aynu niraahno ay siday u qorantay u turjino waxa weeyaan 6 bay 30 dhaaftay it's half past 6 siyaabo kale marka Englishta barato oo kale siyaabo ka fudud oo loo yiraahdo waxaad oran kartaa kale it's 6:30 tan oo kale it's half past 1 like 1 ka weeyaan markaynu half halkan marka 30 daqiiqo it's half past 1 koodii ayay 30 minute dhaaftay marka waxaad taasoo kale waxaad oran kartaa it's 1:30 it's 1:30 quarter past quarter waa 25 daqiiqadood quarter ama 25 minute marba saa u taqaan hadii la yiraahdo it's quarter na wada oran kartaa quarter na wada oran kartaa it's quarter past 9 it's quarter past 9 imaka 9 waa ka marka 9 kiiba 25 minute dhaafto what time is it it's quarter past 9 it's quarter past 9 waa 9 iyo 25 minute tan hadaba aynu eegno what time is it it's quarter past 4 afarti wataas waa halka aan ma garanaysaay gacanta ku cursor-ka ku hayo laakiin saacadu gacanta sheegaysa way dhaaftay marka it's quarter past 4 waxa weeyaan afarti iyo 25 minute it's quarter past 4 soo kale waxaad iska oran kartaa marka Englishta hadii aad halka gaarso waxaad oran kartaa ama sida ka fudud waxaad oran kartaa 4:25 it's 4:25 bas ka oran kartaa okay tan hadaba waa maxay it's quarter what time is it it's quarter to 12 it's quarter to waxa weeyaan hadaba quarter past ayaanu ka soo hadalay taasi waxa weeye intay saacada dheertay hadii 6 hadii ay 6:25 waxa tahay waxa it's quarter past 6 it's quarter past 6 hadaba haday 6 ka dhiman tahay 25 minute waxaad oranaysaa it's quarter to 6 it's quarter to 6 taa macnaheedu waxa weeyaan it's quarter to 6 taa macnaheedu waxa weeyaan ayaan idin khaldina quarter waxa weey waa 15 minute waxaan ka quarter waa 15 minute hadii aan idhi waa 25 yaan waa halmaami hadalku ma jirto marka quarter waa 15 minute waa 15 daqiiqadood quarter it's quarter past it's quarter to 9 marka taa macnaheedu waxa weeye 9 ay 15 daqiiqadood ka dhiman tahay okay let's see this one it's quarter to 5 tan macnaheedu waxa weeye waynu aragnaa saacadu halkaas taagantay 5 in yar baa ka dhiman 5 halkan weeyaan marka 5 it's quarter to 5 5 maxaa ka dhiman 15 daqiiqadood halkan haddaynu dib ugu noqono quarter past waxa weeyaan that means 15 minutes past that means 15 minutes past marka quarter waa 15 minutes saacada marka laga eegayo boqolka marka la eegayo quarter 25 tay laakiin quarter marka saacada laga fikirayo waa 15 minute 15 mirror okay it's quarter to maxaynu nidhi quarter to marka la isticmaalo waxa lagu sheegayaa inta ka dhiman okay part 6 real conversation marka hada yeer halkan waxaan ku soo qaadanaa Ahmed iyo Amina what time do you wake up
Axmed ayaa odhanaya Aaminu weydiinaya goormaad kacdaa. I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. Waxaan kacaa 6. What time do you go to school? Goormaad schoolka tagtaa. I go to school at 8 o'clock. I go to school at 8 o'clock. Markastoo aad aragta E iyo I had iyo jeer iyo G iyo H I way samaysaa. I go to school at A bay samaysaa. Waxay samaysaa A sound. I go to school at 8 o'clock. G da iyo H ta laguma dhawaaqo. E da iyo I duna dhammaantood afarta xaraf oo dhami waxay isu bedelaan A sound bay sameeyeen. A sound. A. I go to school at 8 o'clock. What time do you go to bed? Goormaad sariirta tagta. I go to bed at 10 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. Sariirta waxaan tagaa 10. Reading practice. Read aloud. Sara u akhri, then read it one more time. Kadibna mar kale akhri, okay? Hello, salam. My name is Ahmed. Magacaygu waa Ahmed. I wake up at 6 o'clock. 6 ayaan kacaa. I eat breakfast at 7 o'clock. Quraacda waxaan cunaa 7. I go to school at 8 o'clock. Schoolka waxaan tagaa 8. I eat dinner at 7 o'clock. Cashada waxaan cunaa 7 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. Sariirta waxaan tagaa ama qol maahe waa sariirta waxaan tagaa 10 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. Sariirtaada markaad tagtid ayaa looga jeedaa. I go to bed at 10 o'clock. My name is Ahmed. I wake up at 6 o'clock. I eat breakfast at 7 o'clock. I go to school at 8 o'clock. I eat dinner at 7 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. Markaa waa conversation and akhri. Isku day inaad ereyada si sax ugu wada dhawaaqi karto. inaad fahanteen waan rajeynaya. Markaa su'aalahan ayaan kaaga tegaya. Su'aalahan ayaan idinkaga tegaya. What time do you wake up? Isweydii dadna English kaga jawaab. What time do you wake up? Goormaad kacdaa. What time do you eat breakfast? Goormaad quraacda cuntaa. What time do you go to work? Goormaad shaqada tagtaa. What time do you go to bed? Haddii aad school tagto, what time do you go to school? Halkaa ka dhigo. What time do you go to bed? Sariirtaada goormaad tagta. Okay. Okay, let's review, okay? 3 o'clock. It's 3 o'clock. This one it's 6:30. Waa 6:15. Quarter past 9. Waxa weeye waa 6:15. Quarter to. Inta ka dhiman bay noo sheegaysaa. Quarter past intay dhaaftay noo sheegaysaa. Quarter to. Inta ka dhiman bay noo sheegaysaa. It's 11:45. Waa 11 iyo 45. Ama si kale haddaynu dhigno waa 12 oo 15 mirila. Aad iyo aad baan u mahadsantiin. Waxaan rajeynayaa casharkan inuu ka faa'iideen. oo haddii la what time is it inaad ka jawaabi karto saacaddu waqtiga ay sheegayso.